Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaa ka furmaya maanta shir gaar u ah hoggaanka maamul goboleedyada. Shalay iyo daraad waxaa gaaray magaalada Dhuusamareeb wafuud kala duwan oo ay hogaaminayaan madaxda shanta maamul goboleed ee dalka, iyadoo shirkan gaarka ah ay uga arrinsanayaan guud ahaanba xaaladda siyaasadeed ee iminka dalka uu wajahayo, gaar ahaan doorashada iyo waxa laga yeelayo, iyadoo 5 bilood ay u harsan tahay dowladda federaalka Soomaaliya hoggaankeeda muddo xileedkoodana uu gabaabsi yahay. Ayaa weli waxa aan muuqan in dalka laga shaaciyay nooca doorasho ee loo dareerayo, ma mid dadban ayaa la aadi doonaa mise doorasho qof iyo cod ah oo hore ay u ballan qaadeen hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Dhuusamareeb wararkii ugu dambeeyay ee aan ka helayno waxa ay sheegayaan in ammaanka si weyn loo adkeeyay tan iyo xalayna waxaa socday kulamo gooni ah oo ay yeelanayeen madaxda maamul goboleedyada, kuwa oo ay uga arrinsanayeen bal waxa ay diiradda ku saari doonaan wadahadaladooda. Gogashan uu fidiyay Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, madaxweynaha maamulka Galmudug, waxay u muuqataa mid ay il gaar ah ku hayaan guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. Su'aasha kaliya ee la isweydiinayana waxa ay tahay madaxweyne Qorqor gogashiisa waxay isku soo dhaweyn doontaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada, mise waa ay ku sii kala fogaan doonaan. Dhawaanahanba xaaladda siyaasadeed ee dalka ma wanaagsaneen marka loo eegana maamulada Jubbaland iyo Puntland. Xiriirka kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ku sii socday mugdi. Jubbaland waxaa dowladda federaalka Soomaaliya dhawaan ay u aqoonsatay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe inuu yahay madaxweyne ku meel gaar ah oo muddo 2 sano ah xilka haynaya, waxaana labadiisa sano lagu sheegay warqad ka soo baxday Villa Soomaaliya inay ka bilaabanayso xilligii doorashada ay ka dhacday magaalada Kismaayo. Hase haatee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe gebi ahaanba waa uu diiday tallaabadaas, isagoo sheegay inuu yahay madaxweyne dhammaystiran oo maamulka Jubbaland hogaamin doona 4 sano ee soo socota, isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya ay carqaladaynayso guud ahaanba jiritaanka maamulka Jubbaland. Dhinaca Puntland waxa ay tirsanayaan tabashooyin la xiriira in baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu qalinka ku duugay xeerar marka loo eego maamul goboleedyada aysan faa'iido badan ugu jirin, isla markaana ay ahayd in laga wada tashado inta golaha shacabka aysan meel marin. Puntland sidoo kale waxa aad ay uga carootay tallaabo golaha shacabka ay 13 kursi ay uga ogolaadeen golaha senatka inay ka helaan maamulka gobolka Banaadir dadka ku nool. Waxaana sidoo kale arrintaas ay abuurtay xiisad gaar ah, iyadoona madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani dhowr jeer oo hore uu sheegay in Puntland aayaheeda ay ka tashan doonto. Arrinta waxaa sii qaraariyay toddobaad ka hor kadib markii xildhibaano ka tirsan kuwa maamul goboleedka Puntland ay shaaciyeen in Puntland aayaheeda ay ka tashan doonto, isla markaana ay habboon tahay xilligan in Soomaaliya inteeda kale ay ka go'do. Laakiin arrinta kale ee isha sida gaarka loogu hayo waxa ay tahay maamulada la aaminsan yahay inay taabacsan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya ee iyaguna shirka qayb ka ah oo aan la ogaan karin waxa ay la shirtagi doonaan. Haddii aynu ka hormarno maamulka Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Laftagareen, madaxweynaha maamulkaasi waxaa la aaminsan yahay in halkaasi ay geysay dowladda federaalka Soomaaliya. Dhiig ayaa ku daatay doorashadii uu ku soo baxay, waxaana xabsiga loo taxaabay Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo horey uga mid ahaa hogaamiyaasha Al-Shabaab, hase haatee markii dambe isaga soo baxay, isla markaana u taagnaa qabashada xilka madaxweynenimo ee maamulka Koonfur Galbeed, balse ciidan isugu jira kuwa dowladda iyo kuwa Ethiopia ayaa ka soo qabtay Baydhaba, isagoo muddo ka badan sanad iyo bar ku xiran xabsi ku yaala magaalada Muqdisho. Waxaa la aaminsan yahay in lagu dhadhansan karo hadalka Cabdicasiis Laftagareen uu ka jeediyo Dhuusamareeb halka siyaasadiisa ay ku wajahan tahay. Ma nabad iyo nolol ayuu ka sii mid yahay taageerayaasheeda, mise waa uu ka soo horjeestay oo wax uu la safan doonaa Jubbaland iyo Puntland? Waa su'aasha kaliya ee la isweydiin doono. Sidoo kale madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo isaguna ka mid ah dadka la aaminsan yahay in xukuumadda nabad iyo nolol ay ku taageertay kursiga uu ku soo baxay ee maamulka Hirshabelle madaxweyne uga noqday, ayaa isaguna waxa il gaar ah lagu hayaa, bal siyaasadiisa ay waxa iska bedelay, iyadoo dhawaanahanna ay muuqatay dhaqdhaqaaqyo la xiriira inuu jibinayay amarro ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya oo deegaano ka tirsan maamulkiisa laga hirgelin lahaa.
banaanbax lagu taageeri lahaa tallaabo ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya oo ka dhici lahaa magaalada Beledweyne ayaa la baajiyay, taasi oo loo arko in uu ka dambeeyo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare, iyadoona Waare dhawaanahanba uu ahaa mid siyaasadiisa qunyar socod ay ahayd oo aan ku firfircooneen dhinaca taageerada uu ka helayo dowladda federaalka Soomaaliya ama uu hayo. sidoo kale maamulka Galmudug oo uu hogaamiyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxaa la aaminsan yahay inuu yahay maamulkii ugu dambeeyay ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku guuleysatay in ay geyso qof iyaga taabacsan, waxaana Qoorqoor la aaminsan yahay in doorashadiisa ay ku baxday lacago aad u fara badan. hase yeeshee waxaa laga dhadhansan doonaa khudbadda uu ka jeediyo shirka maamul goboleedyada gaarka u ah ee uu gogashiisa fidiyay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, lahjada uu ku hadlo iyo halka ay saldhigan doonto. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxaa dadka qaar ay aaminsan yihiin marka loo eego habdhaqanka uu la soo baxay inay tahay habdhaqan ka duwan midkii nabad iyo nolol ay ka doonaysay, waxaana uu qaaday tallaabooyin dhowr ah oo xasaasiyad abuuray, isagoona fursad siiyey mucaarad dowladda federaalka Soomaaliya har iyo habeen la dul taagnaa dhaliil la xiriirta nidaamka dowladda ay dalka u hogaaminayso. haddaba daawadayaal, sidoo kale shirkan su'aalaha badan ee la iska weydiinayo waxa ay tahay inta badan marka ay shirayaan hogaamiyaasha dalka waxa ay ku shiri jireen dalka dibaddiisa, laakiin shirkan maadaama gudaha uu ka dhacayo xilli xasaasi ahna uu ku soo aaday, ma suuragal baa in ay ku lug leeyihiin gacmo shisheeye, gaar ahaan waxaa farta ay ku godan tahay in Imaaraadka Carabta uu wax kala socdo qabanqaabada qorshaha la xiriira in kulankan ay isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada dalka. sidoo kale dadka dirsa arrimaha siyaasadda waxa ay su'aalo ka keeneen arrinta la xiriirta haddii dowladda dhexe ee Soomaaliya xubno matalaya goobta aysan ku sugneen, maamulka gobolka Banaadir xubno matalaya goobta ay ku sugneen, ururada bulshada rayidka, culumaa u diinka, odayaal dhaqameedkana meesha ay ka maran yihiin, maxay noqon kartaa natiijada ka soo baxda shirarkan xasaasiga ah ee dhuusamareeb ka bilaabanaya. arrinta kale ee la yaab kale ee guud ahaanba baraha bulshada lagu hadalhayay saacadihii ugu dambeeyay waxay ahayd in dhuusamareeb ay isku bedeshay furin dagaal oo madaxweyne kasta oo halkaasi imaanaya uu la yimid ilaalo gaar ah oo uu doonayo in ammaankiisa uu ku xaqiijiyo. Galmudug ayaan ku filneen amniga in ay sugto, mise waxaa jira cabasho iyo cabsi kale oo ay qabaan madaxda maamul goboleedyada? waa su'aal la la'yahay in si dhab ah looga jawaabo. dhuusamareeb gogasha la fidiyay ee maamul goboleedyada ay isugu yimaadeen, sidoo kale daawadayaal waxaa suuragal ah inay ka soo baxaan qodobo sii kala fogeyn kara siyaasad ahaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. markaynu u soo laabano dhinaca federaalka, waxaa jirta in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ay u muuqdaan in ciid ay ku shubeen guud ahaanba qodobadii xasaasiga ahaa ee ay ka hadli lahaayeen madaxda maamul goboleedyada oo ay ugu horeeyaan dhinaca doorashada dalka iyo sida ay u dhacayso iyo waxa laga yeelayo. maamul goboleedyada si weyn ayay uga walaacsan yihiin in muddo kororsi uu samaysto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sidaa daraaddeedna kulanka ka furmaya magaalada dhuusamareeb waxaa diiradda lagu saari doonaa intiisa badan xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrinta doorashada iyo waxa laga yeelayo. ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uu kulan la qaatay golahiisa wasiirada, isagoona kulankaasi cod dheer ku sheegay in xilligan la joogo xilligii doorashada waqtigeeda ay ku dhici lahayd, haddii taasi aysan dhicinna xasilooni dari siyaasadeed iyo mid dastuur dalka uu geli karo, sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in laga baaqsado. laakiin saacado gudahood warqad ka soo baxday Villa Soomaaliya ayaa lagu taageeray isla arrintaas, iyadoo mucaaradka xubno ku jirana ay walaac xoogan ka muujiyeen sida ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ay ugu tartamayaan in dadka ay u soo bandhigaan afkaartooda la xiriirta dhinaca doorashada. madaxweyne Farmaajo waxaa si gaar ahaaneed loogu eedeynayaa inuusan raali ka ahayn in doorasho ay dhacdo. dhowaana guddiga doorashooyinka qaranka haweeneyda hogaamisa Xaliimo Yarey waxaa golaha shacabka ay ka hor sheegtay in ay u baahan tahay 1 sano iyo 3 bilood oo dheeraad ah si doorasho qof iyo cod ah dalka looga hirgeliyo ama nooc kale oo doorasho ah. ra'iisul wasaare Khayre hadalkiisa aad ayay u soo dhaweeyeen guud ahaanba mucaaradka, iyada oo ay ka arrinsanayaan mucaaradka bal wax laga yeelayo
go'aanada madaxweyne Farmaajo ka soo baxaya oo u muuqda kuwa lagu naqdinayo hadalka ra'iisul wasaaraha. Dadka qaarse waxa ay saadaalinayaan in loolan uu ka dhex qarxay oo ah mid siyaasadeed ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maadaama muddo kooban xilkooda uu uga haray. dadka qaar mucaaradka ah waxa ay qabaan fikrad ku saabsan in madaxweyne Farmaajo uu diyaarsaday tiro ciidamo ah uuna aaminsan yahay haddii uu ku qabsado ciidamadaasi magaalada Muqdisho in guud ahaanba Soomaaliya uu ka arrimin karo. nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa lama oga, sidoo kalena waxaan war dhab ah laga hayn sida ay wax uga socdaan guud ahaanba dalka dhinaca siyaasadda. waxaana la aaminsan yahay in madaxweyne Farmaajo uu taageero ka heli karo dowladaha saaxiibada dhowla ah ee Turkiga iyo Qatar, taasi oo suuragelin karta in mar kale talada uu ku soo laabto sida horey uu uga dhawaajiyay taliyihii hore ee NISA Mudane Sambaloshe oo sheegay inay suuragal tahay in madaxweyne Farmaajo riyooyinkiisa ay u rumoobaan waaba haddii Qatar ay ka dhabayso in dhaqaale fara badan ay ku bixiso si joogitaankiisa kursiga ama ku soo laabashada kursiga madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya. su'aasha aan doonayna inaan weydiino daawadayaasheena ayaa maanta waxa ay tahay maxaa laga filan karaa shirka dhuusamareeb ka furmaya? ba aaminsan tahay wax ummadda Soomaaliyeed u wanaagsan inay ka soo bixi karaan, mise waxaad aaminsan tahay in shirkaas uu noqon karo shimriyahow heesa oo wax micnaha uusan soo kordhinayn? qaybta commentiga fikirkaaga noogu reeb, subscribe inoo saar, asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee Hiil Shacab TV uu sida joogtada ah idinkugu soo gudbiyo. Hiil Shacab TV waxa uu ku tiirsan yahay waa taageeradaada.